الله أكبر الله أكبر walaalyaal aad iyo aad bay u mahadsantihiin maanta waxaa muujiseen hargeysa inaan cali walaabaleeya muujiseen walaalayaal insha allahu tacaalaa maalinta codkana 13 insha allahu tacaalaa waxaa halkii wayna muujisaan inuu cirra ku yahay marti magaalada hargeysa kaambeynkiisa iyo ka muusana waa fake campaign weeye fake waa beenbeen waa fake weeye way madhan yihiin waxay wadaan waxa weeye boqolkii qof ee Soomaaliland baabiiyey ilaa iyo 93 wasiirada isku noqonayay wax alaale waxay qabteen aanay jirin maanta ummadda biyo la'aan tacliin la'aan caafimaad la'aan wada la'aan qashin ka buuxad magaalooyinkii waa nimankii horseeday miyaa soo celinaysaa nimankaas oo isbedbedelaya anigu walaalayaal wax kale idima hayo cadaalad baa idii hayaa cadaaladna kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi wasalaam الله أكبر وكاسا كبحسان قبيالة كاسا كبحسان مصماسقة كاسا كبحسان أبارها كاسا كبحسان سعر برركة كاسا كبحسان إحدى كاسا كبحسان بيالعانتا كاسا كبحسان فقرية كاسا كبحسان إتراف لعانتا كما قال النهي وحجة إلهي قفك كفوتي وهذا فوتيسان كرحتيدا أداو فوتيسان شيغانتا أداو كويستان سبيريدا وحاوغاتان إنيو بابي دونتانو أبار يسعر بر إلهي تقصلي دونه سبحانه وتعالى walaalyaal lixdankii baa laydi habeeyey lixdankii walaalayaal ayaa dembi laydinka galay lixdankii walaalayaal marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qarannimadeennina siiye sidii afrika oo dhan qarannimadeena inoo siiyey ayaa walaalayaal qabyaalad aawadeed iyo xaasidnimo dhexdeena aawadeed ayayna waddan ayna waxba isku helo Soomaaliya waa ku darsanay lixdankii baa baabadeen maanta waxa ogaadaan inaas afrika inagu ugu liidana walaalayaal ogaata walaalayaal waxaynu qaaday 30 sano inuu galay oo galay oo qabyaalada oo dulmi oo markii dambana la haweystay in dhulka la inaga saaro dadka lagu beeray xasuuqa la diyaariyay walaal halkan 10 sanadood baa la galay jabhadeeni SNMT waxay ahayd jabhadii ugu tacliinta badneed intaas waxa ku jiray mataqaanay mutacallim oo graduate saraakiishii Soomaaligu wanaagsaneed baa ku jirtay haddana waxay ku guul daraysay walaalayaal markii dalka la xoreeyay inay Soomaaliland mideeyaan oo ay xukunka qabsadaan oo ay dalka isbedel ku sameeyaan walaalayaal waadiga ogaa walaalayaal markii lagu dhawaaqay 19 laba bilood 3 bilood ka bacdii dagaal dhexdooda iska dhigay SNMT 19 way baabeen waatii guurtu fariisatay boorame waa ki ciyaal inoo yimi ilaahay raxmadiisa siiyo walaalayaal ciyaal bayna badbaadiyo walaalayaal isagana waagtii dagaalka lagu qaaday waatii la yidhi Soomaaliland ka noqdo lacag baa la siinayay raggii ku dhawaaqay waa kuwii xamar ka degay waa kuwii yidhi ma dagaal sokeeyo hala sameeyo waa tan nabadda ka shaqeeyo walaalayaal raggii maalinta dagaalka dhigay inta ilaa maanta inaga maqnaa hadda inagu soo noqdeen maxay u soo noqdeen wadani oo soo noqdeen walaalina wadani dalka u dhiibaan oo mar dambe inagu celiyaan codka walaalayaal haddii inagu soo noqdaana waxay doonayaan inay dagaalano walaalayaal hawada waxa ogaataan laba maanta xageena joogna walaalayaal 26 sano walaal xoraheen intii maxamed siyaad inoo dhisay maxamed xaaji ibraahiim inoo dhisay wala dastuur inoo dhisay dastuurkii waa la jabiyay maalin kasta waa la joogo ma dhaqmo walaalayaal walaal wuxuu inoo dhisay lacag bay inoo sameeyay institutionskii way inoo dhisay
institutionkii waxa la baabiyey maalin alaaliya maalintii uu kulmiye waddanka qabtay waa la baabiyey institutionkeeni raggii baabiyey ee siiraaya aaminay ee u dhiibay xukunka oo yidhi ii fudeedeeya waa ragga maanta walaa kulmiye waddani ku jira walaalayaal ragga dalka shantii sano baabiyey walaalayaal markay saa u muusadeen haddana waddani samaysay waddani soo saaray ee maanta ku jira doonay nagu soo noqdaan wala waddani ba ku jira waa qashin guro waddani waa idin sheegay qashin qaad wey qashin qaad wey xusbi maahe waa qashin guro runta idin sheegay walaalayaal waxa weeye maanta bis 7 sano ahaa kulmiyahay waddan ma haysataa walaalayaal gudaafada hargeysa Soomaalidu arag ballan waxaan ku qaaday maalintan soo baxnay insha Allah taala baarista ku bilaabo dawladda hoose hargeysa haddana jeelka ka buuxin baa ilaahay wala dawladda haddana meeyarka xogeenka xisaab meel ku soo saarin ninba meeyga ilaahay ma ku dhaariyay toogtaxan walaalayaal caafimaad ma haysataa walaalayaal sariirta ku dhimanaysaan sariiraha ku dul dhimanaysaan walaalayaal idinku wax yar qabaasay ku dhimanaysaan tacliin ma haysataa walaalayaal iskuulada dawladda maxaa wax ku dhigataan walaalayaal dukuwi private waxay noqdeen beebe telefoon ka soo furanay walaalayaal waxaan tagay hulul baan tagay dooraad tagay hulul 2009 hulul iskuulka hulul oo markaa hulul yaa leh waxa ka soo jeegay maxamed cabdilaahi ducaale oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa walaal kursi ma ogaana kuraasada dhigay walaal 2009 shalay dooraad ku noqday magaaladii ardadii aan maalinta boorka ka kiciyo oo ka soo baxday iskuulka sideedaad كاسديد وشان يكونتني سكندري ما هيسته ولا عليها ما يقبض تبقى الدولة كلمية كنت رئيسا وحنقول صوت على قاعدين بوردين سكول كده يسبب بإذن الله كريم هلول أي بوردين سكول يلا تسكندرية وهريرة واحد شغلنا هيكدك تامن دوينا إن شاء الله تعالى واحد دوينا قف كثير يسوى ما لو التعليم هنا دوينا ولا عليها إن أنا عروتين يرقبوية عروتين قبوية اسكول ما تكان ولا عليها because they cannot afford ما كما سمان مكان عشان يلا واتكلم لان كان لقى قاضي ولا عليها اسكول بلاش مسينا ولا عليها لحق ما مسينا يكتكون عام بسط كون عام ويدرك السيستم بسينا الدراسة السيستم بسينا وده كان يسبدل ما كون سمينا ولا عليها موسى بيهم مسيرة وحكى بدنا بوكيني كلا ما هو حين سيرة يقطع كلا بوكيني كلا وحيدي شيء يصدح لنا مشرح صدق هنا مشرح horta mid isaga inaga daayo waa Soomaali waa inuu raggiisa wala soo dirto waa lagu shaqeeyo ka inaga daayo walaalayaal kaasi waa shisheey waa inaga Muuse soo haray runta idin sheegaya ragga qabyaalada ku taageeraya Muuse waar Muuse la isku raacsana Soomaaliland beelaan oo galeen ma dagaal sokeeyo sameynaysa walaalayaal hareeru ma ogola beelaha dhaxlo qaar baa ogola qaar baa idin haduu Muuse baxa ama Soomaali keenina ma ama Soomaali doonaysa dagaal sokeeyo ما يمرد ما قحنا دوريسان حلك يا حلك بواني وافيس على ولي أبي وي وانا يا بروفيسور أبي بعد ذلك بدبانيننا إن شاء الله تكاسان لكم بدبانيننا واحد شيء يعني ما كان ديبت كيمي كوا ديبت كيمي وانا اسكت إيدك وانا اسكت صور وصلي إسلامي وحي ويل شير لو سيدا كيني odayaal iman baa la keenay oo Sacad Muuse iyo habar yoonisa oo law maanta waa maalinteeni ma waa maalinteedi waa maalinta kitaabka walaalayaal Allahu akbar baleenay ayaa war hays qasaarinina waxa leeyahay nimanka wadaniga ka soo jeeda iyo kulmiyo war is qasaarina waxa waliba u diriya fariin waxa u diriya beeshu ka soo jeeda Siiraayo ورداي ما أنت أسيسان مصبح حقوقك ورملا وقلان ميا بيلان وقلان ودقيان قعنشو كبر بروري عليه ورودايا كدايا وقعنشو كبر بروري عليه وروال الكمات على استورتوريا قولي مكان البابدة اسكتشمينيا ما أنت والله إذا موسى بحي والله نسوما إن بندقوني والله بالله ما يدقوش شاين نقولين هذا كي كادانا ما حايدكو قصبي الدقال ما أنا وحيقا وايسان أنا وايدا شهدا قبيل دوزا سعد مسايد علي هذا أنا كأوجده وأنا تتعاوش وصوته وهذا حوي قبيلتنا وفوش حلو والدم وقبيلتنا تشوشية وريال سومان القبيلة ودي سكروا هير لقول سمايو بلوك لقول سيدي مايو
kooxa lagu dhisi maayo xulufo lagu dhisi maayo midnima lagu dhisiyaa Soomaaliland haddaan midnimo weydaan Soomaaliland burburinaysan ogaan walaalayaal Soomaaliland haddaa burburinaysaan ragga meelaha baabuurta wata ee le maanta jeegaan baynu nahay haddaan ay garxaji baan nahay Soomaaliland waxa wadaan dhimashadeedii mustaqbalka carruurta boqolkiiba 80 mustaqbal bay u baahan yihiin tacliim bay u baahan walaalayaal waa maxaa dabaaloodii qabanna insha Allah ta'ala wala mustaqbalka walaal waxaan doonayaa inaan wadi mideynaa doonno waayo walaal waxaan doonayaa inaan i'tiraafka soo socdo weydeen i'tiraafkeena doonno walaalayaal اعتراف مالي كان لما كن يسقال يتوبك إن شاء الله تعالى وكلا بحنا إنك يا صومالي وكلا بحنا إن شاء الله تعالى صومالي ومغلس والي إلهي ما يذكر داري مدى إنسان سحالته نمان بارلمان اسكو شيء غير يرى أن جارنا غير يرى أن جارنا هاي وبدلان لبحي أيا بارلمان كولي بارلمان غير ميلكو شري oo baarlamaan isku sheegay ayaa waxay yiraahdeen Soomaaliya sanaag doorasho ka dhici mayso iyo cayn waxay u bixiyeen cayn ma jirtay waa buuhoode walaalayaal annagu waa ogtino nabad baa jecel walaalayaal Soomaaliinta ay ku jirtay waxba ma inu yeelin iyaga isdiliyay maantana waa reerka meesha degan Garowe iyo Puntland sheegtay Soomaalida dhibaatay ku haya oo waxay la degi weyday Soomaaliya waa iyaga weey inagana hadda inoo soo dhigteen shacbiga waxaan leeyahay deegaanka degan siyaasiyiintiina iska hadaaqisa yaana fidmeydin keenay anagu wala nabad baan jecelahay derisnimo baan jecelahay Soomaaliland jecelahay danteedaan ka shaqaysanayna xasuuq baadna kaysiiseen waa idin saamaxnay waa dawladda meesha way ka tagtay Soomaali cod uma hayno waxaan waliba jecelahay haddaan soo baxay insha Allah taan halka shir ugu qabto inaan dawladda u dhisno laakiin waxaan leenahay siyaasiyiinta reer beeshaas waxaan leenahay walaa Soomaali fidmada ka daaya waa Soomaali dhibaatay ka daaya qofkii Soomaali dhibaatay ay isaga dhibaateeyay reer mu dhibaateena isaga dhibaateeyay waana ka muuqata maanta Soomaali dhibaatadu wadiyarka boqolaal ba ku dhimanaya wadiyarka ayu hableeni qaaliga aha yamiya qadar weyn baa timir iyo bariisiisa oo walaa ku shookaasa walaalayaal damir male walaalayaal inta isleeyeen reer hebel xumeeyeen magaciina bay xumeeyeen waxa leenahay walaalayaal reer Garowe waraana ninkasi maanta Soomaali tuule Soomaali hagaajiya waa qof Soomaali dhan hagaajiyay wala aflagaadada iyo beenta carruurta ugu sheekeenaysan iyo colaada joojiya waynu isnaqaanaynaagu waynu isnaqaanaa way ku idugu hakani mayno gelin lagu qaadan mayso inaan Garowe qabsana laakiin anagu colaad ma rabna wala nabad baan rabnaa walaalayaal nabad baan rabnaa daris wanaag baan rabnaa naga daaya faafaanta leenahay way dhamaatay maalintii Soomaaliland reeru hanjabiyeen ciidan baa sameeyay insha Allah ta'ala quwad leh oo qurux leh oo xoog leh oo tababaran oo mobile argeero seeka yahuudo kala boqol ku jabiyaan doonay insha Allah ta'ala kaasoo kala sameeysanina walaalayaal booliis baa sameeysanina walaalayaal wanaagsan oo qayileen oo barigu ka dhaceen oo labisan oo sharafta dalka ilaalina oo la shaxaadan sameeyo walaalayaal askari dambe qaad culiya oo checkpoint joogay ma jiro walaalayaal nidaam baan soo jeedina walaalayaal qurux iyo sharaf baan soo jeedina walaalayaal magaceena dib u qaadina walaalayaal maanta magac malihi walaalayaal baasaboorkeenu barina walaalayaal lacagteenu bridge-ka Hargeysa dadka barina Ilaahay baan ku dhaariyay bridge baan isan kari weynaa intaan maalinta ku qayilaa aruurteena dushka qaadna insha Allah ta'ala walaalayaal gaajada la dagaalamina walaalayaal gaajada qof dambe Soomaaliland oo gaajoonaya ma jiro dadka curyaamiinta wax siin doona sanduuqa dawladda ka masruufi doona arsaaqada badan doonta raxmada badan doonta roobka badan doona because waxa weeye kitaabka Ilaahay iyo sunnaha rasuulka ayaa raacana walaalayaal saddex iyo tobanka bisha walaalayaal saddex iyo tobanka waaba bariyay bilciyan waaba bariyay insha Allah ta'ala bilixsan baynu bari walaalayaal waa ka baxaysan qabyaalada reerka waa ka baxaysan ibn Ahmed buu tagaya Muuse beertiisu qodanaya dalkan jiida insha Allah ta'ala walaalayaal waa ka insha Allah ta'ala beerta